wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena cunto karinta ee dhadhan ee horeba inoogu sii socday waxaa hadda tartami doona ambaba aan maraynaa stagekii saddexaad ambaba wareegii saddexaad waxaa tartami doonaa 3 tartame waynu soo dhaweynaynaa waxaanu rajaynaynaa guul sidoo kale waxaa ku tartami doonaa finger fish iyo weliba bariis bal waynu eegi doonaa nasiibku qofku siiyo iyo weliba cidda guulaysata waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Sky Top Chef School oo iyaguna noo saamaxay inaan goobtan ku qabsano aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu rajaynaynaa tartamayaasha tartamayana guul daawasho wanaagsan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maantana waxa insha Allah in geli doonaa wareegeeni saddexaad tartanka maanta waxa aynu kaga qayb galayaan tartamayaasheenu finger fish iyo rice hadii la hayda finger fish iyo rice weeyaan muddada ay haystaan tartamayaashuna waxa weeyaan 45 daqiiqo.
gaadhnay gebagabadii tartankeenii maanta ee wareegga saddexaad natiijada ayaan iclaamin doonaa tartan fiican bay noo soo dhacay ifraax shaadiye iyo ayaan insha allah si fiican baad u soo tartanteen macnaheedu maaha qofkii maanta laga badiyaa in uu guul daraystay halka inaad soo gaadhaan baaba guul ah insha allah waxaan u rajaynayaa qof walba oo idin ka mid ah inuu halkaa dadaalkiisa ka sii wado uu ka sii kordhiyo insha allah ifraax cabdiraxmaan cunto fiican baad soo bandhigtay qurux badan laba waxaan kuu hayaa dhaliiloodo keliya ta koowaad oo ah kalluunka marka hore xawaashka intaad yar marisay xoogaa yar kumaad dhigin adoo waqti haystay ka faa'iidaysan karayay ta labaadna xoogaa saliidoo kaa yar kululaatay oo kalluunku fish fingerkii uu xoogaha kaa yar xoog kaaga yar casaadeen marka insha allah wixii iman ka dambeeya waad ka taxadiri doontaa insha allah guud ahaan waxaan ku siiyey anigu 89 shaadiya cunto aad qurux badan baa shaadiya soo diyaarisay dhadhankeedu aad buu u fiicnaa waxoogaa yar kolley waqtigii oo aan laga faa'iidaysan si oo kalluunkii iyo bariiskii oo isku mar aan la saarin ayaa yar keenaysa bariiska waxoogaa yar inuu yar aad ka yar dareentid inaanu aad u yar bislayn sida kale laakiin cuntadu aad bay u fiicnayd aniga ahaan waxa aan ku siiyey 7% ayaan cabdiraxmaan cunto aad u macaan ayaad soo bandhigtay oo qurux badan si qurux badan oo soo bandhigtay laba dhalooda kaliya aan ku hayaa ta koowaad waxa weeyaan kalluunkii baad horeysiisay oo hoshiishay oo bariiskii baad dambaysiisay taas waxay ku keentay laba shay inaanu bariisku si fiican u bislaanin oo waqtigii ka qaatay kalluunka iyo in kalluunkii markaan dhadhamino tijaabino dad qaboobay oo waqti badan u dhulka yaalay marka waxaan kugula talinayaa insha Allah wixii ka dambeeya si baar labadaba tarantaalina labada shay aad sameynaysid isbarbar wadid insha Allah sida kale laakiin dhadhankiisu aad iyo aad u fiicnaa anigu waxaan ku siiyey 4% waxaan ku wareejinayaa Sakariya isaguna inoo sheegi doona Ifra 88 out of 100 Shadia 89 out of 100 Ayan 87 النصر كمان إفراع واحد موقف 10 شادي مثلا كل واحد موقف 10 عيال واحد سوق موقف ولا بيشتكي wadarta guud ee dhibcaha marka la isku daro wareegeeni saddexaad ee ay ku soo tartameen ifraax cabdiraxmaan shaadiya bashiir iyo ayaan cabdiraxmaan waxaa ku guuleystay ifraax cabdiraxmaan iyo shaadiya bashiir waxaan idin leeyahay hambalyo ayaana waxaan leeyahay lagama guul dareysan nasiibku qof unbuu la jiraa marka insha Allah adiguna waxaan rajaynayaa tartamo dambe inaan iskugu iman doono insha Allah waagaag daawadayaal waxaan wada daawanaynay sidii uu tartanku u dhacay iyo waliba qofkii labadii qof aan idhaahdee soo baxay waxaan aad ugu mahad celinaynaa saddexda qof ee tartamay sidoo kale labada qof iyaguna soo baxay waan u mahad celinaynaa inantaa dhina waxaan leenahay waxaad ka qayb qaadatay tartankii waxaad soo gaadhay meel qurux badan waxaad karisay cunto aad u qurux badan nasiibka laakiin ku siin waxa kale aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Sky Top Chef School oo iyaguna barnaamijka qayb ka ahaa inta barnaamij la mid ah ambaba tartan la mid ah aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo mac salaama